السلام عليكم كلنتو wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin umada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkii han noolaato waxaan halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ayaan la Xuseen Cabdi iyo Cali Warsame Cali Soomaali qaybtan waxaan uga hadlaynaa yaa wadani ah oo aan rabnay in dadka Soomaaliyeed aan u sharaxno bal wadaniyada iyo qofka wadaniga ah iyo waxa u dhaxeeya qofka wadaniga iyo qofka aan wadaniga ahayn ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri han noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo علي ورسمة waxaa tahay nin Soomaali ah oo wadaniyada lagu yaqaano oo Cali Soomaali la baxay oo dadku ugu yeeraan waxaadna ka soo jeedaa waqooyiga Soomaaliya waxaan rabaa maanta bal dadka Soomaalida aan u sharaxno yaa Soomaali wadani ah wadaniyada marka laga hadlayo ma waxa wadani ah ninka Soomaalinimada rabo ee Soomaaliya oo dhan ay u siman tahay ee qowmiyadda iyo qaranka Soomaaliyeed mid u yahay ma waxa rabo qolada aad ka dhalatay ee dalka kala gooynaya oo qaar badan oo kamid aan hubo inay u takanoobeen qarannimada Soomaaliya oo badankooda ay xamar joogaan 25 sano oo ay diideen waxa qabiilkoodu rabay ma waxa wadaniya ninka nin Soomaaliya intuu qabto amxaarada u gacan gelinaya ma waxa wadaniya ninka amxaarada la safan yaa wadaniya Caliyo waxa wadaniya ninka aan Soomaali hoos uga soo degin hadduu nin kugu yiraahdo waxaan ahay Somaliland ama waxaan ahay Puntland ama waxaan ahay Jubaland ama waxaan ahay Hirshabelle ama waxaan ahay Galmudug waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay ninkaas inuu Soomaalinimadii ka tagay waxa weeye ninka maanta taageeraya Somali federalism ninka taageeraya anigu ma aaminsan inuu yahay wadani Soomaaliyeed ka kala goynayana iska badaa gobolada waqooyina waxa weeye dadku sida la moodayo maaha ummadda ka soo jeedaana aad bay ugu qaybsan tahay anigu waxaan qabaa haddii aftil la qaado maanta haddaysan 50-50 ama 40-60 noqonin afti xalaal haddii la qaado dadka shicibka la yiraahdo hal codeeyo maanta anigu waxaan aaminsanahay sida la moodayo inaysan ahayn sida meediyahu wax uga sheegay inaysan ahayn ummaduna inay inta ka dhowdahay ayaan aaminsanahay علي adiga nin dhalin yara tahay dibadda ku kortay yaraantaadii ciyaalnimada dibadda aad tagtay Soomaaliya wax macno leh oo mirihii dalka waxba kama cunin laakiin dadkii wasiirada noqday dadkii qaarkood villa Soomaaliya fariistay oo la shaqeeyay madaxtooyada oo xilalkii ugu weynaa qaranka helay oo waqooyiga soo jeeday ayaa caruurtii ku abaabinaya in qarankan la kala gooyo waxa weeye way jirtaa taasi laakiin waxa weeye marin habaabintaasi anigu waxaan u malaynayaa inay dhammaan doonto ayaynan ilaawin markii SYL ay waqooyi tagtay waa loo diiday in xafiiska farta Hargeysa barigii markii hore markii dambena weyn ogeen meeshii ku dambeysay ummaddu ay soo raacday Soomaali baynu nahay durbaanka beenta ah ee la isu tumayo ee wadanka ama lagu kala qaybinayo ama nin yiraahdo 4.5 ama nin yiraahdo federalism ama nin yiraahdo wax kala aan ahay oo wadankan goosanaya anigu ma qabo inay wax soconayaan ay tahay ilaahayna kama dhigo waayo waxa weeye inagoo adduunkiyo globalization wado adduunkiyo isu wada tagaya inaynu inteenan yar ee ilaahay geeska Afrika ku beeray inaynu kala goon anigu waxaan doonayaa intaan gaari ka kaxaysto xamar inaan Lagos ku tago laakiin in la yiraahdo checkpoints baad maraysaa markaad gaalkacyo ka gudbaysid markaad beledweyne ka gudbaysid marka aad Laascaanood ka gudbaysid markaad Burco ka gudbaysid markaad Boorama ka gudbaysid in meel walba la yiraahdo istaag oo taariikh cusub iyo insurance cusub iyo inaan wax aqliga galaya ma aha qof wax garadina wax ummadda u sheego ma aha anigu ma qabo ma aaminsan taas علي معلومات aan helnay oo taariikhda ay qorayso taariikhda Soomaalidu been ma sheegto waxa muuqata markii burburku dalka dhacay oo qarnimadii Soomaaliya duntay qabaa'il baa loo kala go'ay dadkii caadifad baa jirtay xanuun baa jiray qof walba meel buu ka galay maaragtay noloshii Soomaalida reer waqooyiga taariikhdu waxay hadda xusaysaa inay yihiin dadka kaliya ee qabiil ahaan marka laga hadlo hawiye ama daarood ama isaaq ama dir dadka reer waqooyiga inay yihiin dadka kaliya ee diiday wixii qabiilkoodu waday Somaliland isaaq wuxuu waday dad reer waqooyi oo diidaa jira oo ilaa hadda 25 sano midnimo Soomaaliyeed raadinaya oo xamar fadhiya maxaa la yiraahdaa laakiin ma dhicin nin Puntland ka soo jeeda ama hawiye ama daarood ah oo qabiilkiisi uga tagay midnimo Soomaaliyeed inuu raadiyo qaran Soomaaliyeed marka dhinac marka laga fiiriyo xaqiiqdu waxay tahay reer waqooyigu
waa dad qarannimada soomaaliyeed u dhintay, u baaba'ay, loo ihaaneeyey. ragaan 25 sano guryahooda hargeysa tegin, sababtaysa u teginna waxay tahay in ay midnimo soomaaliyeed raadinayeen. dadkaas qaranka soomaaliyeed iyo dowladda dhexe ee soomaaliya maxay tahay inay dadka ugu abaalguddo, soomaaliduna ugu abaalgudaan ay ku gartaan? waxa weeye horta ta ugu horeysa waxa weeye dadkani mas-uuliyaddii qarannimo ee soomaaliyeed bay wadaan. waxa weeye haddii aynu nahay soomaali oo aynu mas-uuliyadda ina saaran ee qarannimo ee soomaalinimo aynu qabsanayno, wada qabanayno, aynu dhinacyada ka gelayno, in aniga cidana igu tiraahdo mahadsanid uma baahni, waayo waa mas-uuliyad saaran. waxa weeye muxuu yidhi John F Kennedy, it's not what your country can do for you, it's what you can do for your country. inagu maxaynu waddankan u qabanaynaa? dadkan reer waqooyi ee magaalooyinkoodii tegi karen, gobollada waqooyi oo dhan intaas oo magaalo baa nin keliya gurigiisii uusan maanta tegi karin. sababtuna waxa weeye war Soomaali weyn bay aaminsan yihiin. maxaa loogu abaalgudayaa? waxa weeye waxaa loogu abaalgudi karaa in la diido dekada berbera in la bixiyo, in dowladda federaalku intay istaagto ay tiraahdo dowladda imaaraadka ay safaaradaada qaado. mas-uuliyadda saarani dowladda federaalku waa taa weeyaan, inay tiraahdo waddanku iib maaha, in la yiraahdo dowlad goboleedyadan marba wax soo saxeexaya dadka la soo shiraya in loo diido. aniguna gurigayga ma tagi karo, nina intuu dhoofuu contract la soo saxeexanaya wadamo kale. wax caqliga gelaya ma aha, wax caqliga gelaya maaha. marka mas-uuliyadda ina wada saarana soomaalinimo ee qowmiyadnimo ee qarannimo waa in waliba dhinaciisa uu ka qabto. maxaad is leedahay in maanta hargeysa iyo burco iyo berbera iyo boorama dhalinyarada joogta ay garwa baasboor u doontaan, oo baasboorka soomaaliya loo diido inay ka qaataan dhulkoodii, oo haddana teleefonkii soomaaliya 252 la isticmaalo oo lacag laga sameeyo? waxa weeye waa ayaan darooyinka oo waxyaabaha aan caqliga gelaynin. marmarka qaarkood waxaad soranaysaa waxaani ma sheeka caruureedba, waayo haddii aynu ka sheekayno labada xafiis, 3 xafiis oo midna baasaboorada I think Boosaasu ka furan yahay, midna Garoowe, midna wuxuu ka furan yahay Buuhoodle. 3 xafiis baad tagtid dad gobollada waqooyi ka soo jeedaba 10 oo saf ugu jira oo baasaboorka qaadanaya. maxaa Hargeysa looga furi karo waa xafiiskaas? barigii hore intaan baasaboorka la bedelin, Hargeysa waxa weeye suuqa lagu iibin jiray baasaboorka Soomaaliya oo lagu dhoofeeyay, oo caruurta dhalinyaradu ay ku fiisayaasha loogu dhufanayay. marka waxa weeye dadku hadeerto, anigu waxaan qabaa gobol hadeer waqooyi, hadeer Hargeysa maanta waxaan aaminsanahay haddii taafta laga qaadanayo wareer halkan laga furo xafiis immigration oo baasaboorka Soomaaliya idinku siiyo, anigu waxaan qabaa 90% way yeeli lahayn. may diideen. waxa weeye waa durbaankan la tumayo. yaa dadka 25 sano dadkani baasaboorro ma haystaan. qof xanuunsanaya, qof waxbarasho u socda oo jaamacado dibadda aadaya, maxaa qof buka oo dhakhtar aadaya, qof xajki u socda, haddii sidaa loo curyaamiyey oo aad la sheegayo madaxda oo maaragtay dowladda dadka Somaliland madaxda u ah oo dhan markaa fiirisid 99% waxay wataan baasaboorro shisheeya. ayagu dhibaatada ma qabaan Soomaaliya? iyagu dhibaatada ma qabaan. xataa kuwooda aan haysan baasaboorrada shisheeye xafiiska xamar bay toos ula xidhiidhaan, baasaboorkooda ay soo qaataan, way duulaan. maxaa shacabka loo dhibaataynaya? shicibka waxa weeye nimankani jagooyin bay haystaan, mushaahar bay qaataan, shicibkana u turi maayaan. shicibka haddii weyn loo turo, waxa weeye shicibka haddaan loo turinin waxaa imanaya inay kacdoon shicib dhaco. waliba hadeer Burco iyo Hargeysa, waliba Burco kacdoon shicib inuu ka dhaco xukun ah magaalada hadeer Burco la yiraahdo. marka waxa weeye taasina insha Allah way iman doontaa. waxa weeye dadku way isu imanayaan Soomaaliya, meel kala aadi mayso. kala goosashadanina wax caqliga gelaya oo qof maskax leh loo sheego ma aha. yaa dan ku qaba marka runtaan ka hadalno Cali? Somaliland inay go'do oo hadiiba la yiraahdo Soomaaliya ha go'doba aan dadka Soomaalida isku raacaan, maxaa faa'iido lagu qabaa? yaa faa'iido ku qaba? waxa weeye cidina faa'iido kuma qabto. dadka aaminsan inay go'do Somaliland waxaa degan qabaa'il fara badan. xaqiiqduna waxa weeye qabaa'ilkaa degan hadeer haddii la yiraahdo reer Awdal iyo reer Sanaag iyo reer Sool
anigu niman baa waxaan ku yidhi wareedha habal la go-ee bal itusa maab lagu go-o oo aan dagaal keenayn ila wax caqliga gelaya meesha in dagaal sokeeye la horseedo oo ma aha moogta waa in la isqanciyo bal maab lagu go-o oo aan dagaal keenayn iyo dhibaato hor leh keenaynin qabaa'ilku kuma heshiin in la go-o heshiis laguma wada ahayn waxa weeye niman iska yaacayaa yimid markii horena xitaa balaankii hore SNM kuma ay jirin in la go-o waddanka la kala gooyo waayahay yaa marka haddii hadda la israaco yaa dan ku qaba danta ugu weyn waxaa helaya waa reer waqooyi weeyaan haddii run la doonayo waxa weeye waddanka berigii hore laysu tegey laablakac fara badan oo gobollada waqooyi ka jiray wuu jiray oo la yidhi wax negotiation inagoon koonfurta la gelin unconditional waa israacayna laakiin hadda haddii waa la qawaday dhibaatooyin baa dhacay dagaallo sokeeyaa dhacay marka waxa weeye hadda haddii si wanaagsan oo xaqa wax loo qaybiyo oo arrintan 4.5 xaaraantaana meesha laga saaro waxa weeye xaqdarooyinkii hore jiray baa kuwa kale dusha laga sii saaray dad badan oo aqoon-yahan waxay qabaan caliyo macnaha mushkilada meesha taal waxa weeye nin hashiisii raba in loo liso Soomaaliya waa qaran Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan iska leh laakiin cuqdad maxaa keenay inaad tiraahdo hashaydii caanaha la lisay waxa laga siiyo halkii ay ahayd adigu inaad listood qaybiso reer waqooyi gaar ahaan reer waqooyiga reer Hargeysa iyagay ahayd inay qaybiyaan ay lisaan ay mataqaana Soomaalida Sooriyayaan maxaa martay kan 2007 Hargeysa madaxtooyada baan daahir riyaale waxaan ku yidhi maad waddanka inta isugu yeedhid halkan caasimadii ka dhigtay xamar wataas oo yara qasan tahay marka waxa weeye in caasimadii hadday xamar intay qasnayd ba hadda alxamdulillah hadda waa fiican tahay marka qasnayd waxay idin Hargeysa inta la keeno caasimadii labaad weeyaan bari hore marka taladu mar bay ahayd marka way neeyara seegtay in la sameeyay ahayd laakiin ma isleedahay haddii hadda Soomaalida socota iyo Soomaalinimada aanan dhaxda laga raacin waxa la gaari doonaa maalin aadan macno badan ku sameynayna Soomaalinimada soo raacdo way dhici kartaa laakiin anigu mid baan ogahay Soomaalinimadu waxa weeye inaysan dood gelin shayga suuxa qarannimada ummadda Soomaaliyeed wayna la su'aalin waxa weeye maxaa inoo dana inagoo Soomaaliya waxa inoo dana ilaa iyo anigu NFD ma yiraahdo anigu SFD baan yiraahdaa aniga waa Southern Frontier District bayta ama SFD ama NFD saa doontid ba adigu u aqoon ilaa iyo Gaaris waxaan doonayaa waddankeena ilaa iyo Djibouti afarta haday doonto haba naga tagto xaaladda hala dhigay ku noqoto hadaydo laakiin waddankii Soomaaliya la oran jiray meesha qof Soomaali degan yahay ma aha dadka af Soomaaliga ku hadla qof Soomaali meesha degan yahay waddan Soomaaliya leeyahay jira ereygan dadka Soomaalida ku hadla وين نشوفنا إنه نستعمله وقوي وكيف هذا صح ما هذا صح هذا صح ما رجع رئيسان وركض وين هذا صح ما ويا وقدبين مركب حرينا كوجا بجمعيه dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya Cali Warsame Cali Soomaali arkay mushkilada ayna dhaxal siiyeen dadkeenii naga horeeyay cuqdada iyo qabyaalada iyo maxaa la yiraahdaa abtiga inuu qabiil kale yahay adeerkaana qabiilkaaga yahay abtiga inuu cadow yahay adeerkaana sukeeye yahay ilaa haddana maskaxdeennii ku shubay oo dhalinyaro badan ay u dhibaataysan tahay maxaa dardaaran ah oo aad is leedahay dhalinyarada Soomaalida maanta ha noolaato u maray dardaaranka waxa weeye in aysan Soomaali qofka hoos uga soo degin qofka Soomaaliga ah inuu walaalka yahay meeshuu doonaha joogo inuu walaalka yahay in aadan kala sokaysiisan ka yimid Baydhabo iyo ka yimid Sayla iyo ka yimid Raas Casiir iyo Raas Kaambooni iyo ka yimid Xamar cadaada ka yimid gaalkacyo ka yimid ka garowka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inay isugu kaamid ahaato haddii aad aragtid iyagoon isugu kaamid ahayn waxay noqonaysaa inaad dhakhtarka aadid waxa weeye taas weega talo waa tahay saaxiibayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii koobnaa qaybtiisii labaad ee aan aniga iyo Cali Warsame Cali Soomaali aan idin soo tabinaynay intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo
markay xaajagoodo alla loo gardigta gacmaa loo fidsada gargaarkii la baryaa haddii duula yiraahdo colaabaa goy doonta gadalbaa dhici doonta gabanada qosli doona kubano diidona kelano dhali doona darabka culmi doona giryala tegi doona gesiga iman doona wayilka gabi doona gabanada qosli doona idkaloo gurigeena gogolnoo dhaxigta garabnoo noqota gacanoo fidisa su'aalba garabtaale somalay somalay idkaloo gurigeena gogolnoo dhaxigta garabnoo noqota gacanoo fidisa su'aalba garabtaale somalay somalay Somalay, Somalay, ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaallo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid